Is that them? Is that them? Yes. Really? What does that mean? It's a mean. Okay, we are coming. That's a giving a symbol of the. Kumpana Sabirane! Kumpana Sabirane! waa booqashada dad ka mid a dadyowga dunida ugu khatarta badan. haddii aad yaraantaadii maqli jirtay sheekooyinka baqdinta leh ee waraabadadow, dad qalato iyo qoris maris, fiidiyogan waxaan kugula wadaagi doonaa dad cuna hilibka dadka. waa dadka ku nool dhulka buuraleyda kaymaha badan ee bariga Indonesia. qabiilka loo yaqaano Korowa waa qabiil haysta habnololeedkii ay haysan jireen 10,000 oo sano ka hor, oo ilbaxnimada iyo isbeddelka tiknoolajiyadda dunida aanay soo gaarin. ku soo dhowow sheekadan xiisaha badan. In my eyes, Papua is the climax of anthropology, the study of humans who have been living on this island. Kumpana Sabirane! qabiilkan qadiimiga ah ee Korowa ee ku nool bariga dalka Indonesia ee cuna hilibka dadka ayaa waxay guryo qoryo ka samaysan ka dul dhisteen dhirta dusheeda, taasoo ku tusinaysa heerka ay ka gaareen xeeladaha farsamooyinka dhismaha. guryahan dhaadheer ee geedaha dushooda ay ka dhisteen ayay waxay kaga difaacaan nafsadooda cadowgooda, waxaana u isticmaalaan salaamo dhaadheer oo geeda ka samaysan, kuwaasay ku fuulaan kuna galaan guryaha. haddaba socdaalka lagu tegayo meesha qabiilkan Korowa ay ku nool yihiin ayaa ah mid masaafo dheer loo sii maro, iyadoo lasii dhex marayo webi, in badanna lasii soconayo saacado dheer. webigan ayaa loo sii isticmaalaa dooni, taasoo khatarta bahallada webiga ku dhex nool mar walba ay tahay isha baalkeeda. waa masaafo dheer webi dhexdiisa oo habeen iyo maalin laga yaabo ay tahay inay qaadato. waa socdaal aad u halis badan, khatartiisana xambaarsan. As darkness falls, we're still on the river, and our troubles are just beginning. Nonetheless, I am here to learn all about their fascinating Papuan rainforest. Modernization is slowly creeping in, which explains their cigarette addictions. haddaba arrinka aadka u xiisaha badan ee qabiilkan ku saabsan ayaa ah qof qabiilkan ka mid ah markuu dhinto waxa ay u aaminsan yihiin inuu u dhintay sixirka shaydaanka, taasoo isla markiiba ay odaygooda weydiiyaan inuu sheego qofka dilay qofkan. haddaba isla qof iyaga ka mid ah ayuu si bakhtiyaa nasiiba farta ugu fiiqaa odayga, isagoo sheegaya inuu ka dambeeyey qofkan dhimashadiisa. haddaba dadkan ma aaminsana inuu jiro xanuun ama caabuq sidii dhalin kara xanuun loo dhinto, ee qof kastoo iyaga ka mid ah dhimashadiisa waxay u saariyaan sixirka shaydaanka, kaasoo isla qof ayaga ka mid ah loo soo qabto, isla markaana la dilo, hilibkiisana la cuno. odayga reerka markuu qofkii ka dambeeyey dhimashada qofkan si bakhtiyaa nasiib ah u nasiibiyo oo farta ku fiiqu yidhaahdo waa hebel, hebelkii ayaa jujuub loo soo qabtaa, lana qashaa, isla markaana hilibkiisa la cunaa. waa arrin aad u naxdin badan oo cajiib ah.
ninkan ayaa sheegay hadda ka hor inuu dilay saaxiibkiis kadib walaalkiis iyo bulshadiisa in walaalkiisoo xanuunsanayay uu u sheegay That night, inuu dilay my Luma arrives saaxiibkiis at our kadibna camp. saaxiibkay ayaan soo qabtay He's carrying a oo aan flashback. dhirta mariyey dilay isla markaana hilibkiisii ayaan cunnay waa cajiib cajiib What do you think of that? This is a man who was eaten by other humans, in fact by the man. Take a look at it. Well, Bailorm has come good on his promise. He's come to our village, a skull of a human being. 12 months ago, Bailorm's cousin died, but just before he died, he told him that this man, Bunop, was a sorcerer, a witch man. So he saw it as killing to kill the Kaku. Head, and then we start to slice open the stomach. We take out the intestine out of the side. Then we cut off arms and legs.